halkani warbaahinta walbanaadir online saaxiibayaal ku soo dhawaada warbixin cajiib ah oo aan idin diyaarinay. qormadan ayaa waxaan ugu magac darnay haqiyaanin qofnaba ku qabsan doontii moogidi. waa qiso cajiib ah, hase yeeshee haddii aad ku cusub tahay warbaahinta walbanaadir online, subscribe si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay iyo qisooyinka la yaabka leh ee dunidani ka dhaca. waxay ku bilaabanaysaa sida tan. laba nin oo saaxiibo aha ayaa safar wada galay. mid ka mid ayaa waxa uu watay neef geel ahi. markii ay muddo safari ku jireen ayay arkeen ceel meel saxaraha ku yaala oo aana wax wadaan ag aalin. waxay go'aansadeen inay ceelka biyo ka soo dhaansadaan. ninkii neefa geela lahaa ayaa ceelka galay si uu biyo uga soo dhaamiyo, saaxiibkiina ceelka uga soo saaro markii uu biyaha soo dhaamiyo. ninkii saaxiibkiisa ahaa damac ayaa galay, waxa uuna go'aan ku gaaray in uu hasha saaxiibkiisa u kaxaysto. waxa uuna la soo baxay xariggii ceelka ku jiray si uu hasha u kaxaysto. ninkii waxa uu waayey saaxiibkiisa. qoraxdii ayaa ceelka ugu dhex dhacday. saqdhe habeenkii markii ay tahay ayaa waxaa kor imaaday koox rag ahi. ceelka dushiisa ayay ku sheekaysteen. waxa uuna ogaaday raggan ku dul sheekaysanaya ceelka inay yihiin sixiroolayaal. sanad walba ayay ku kulmaan ceelkan dushiisa, waxayna isweydiiyeen wixii ay soo qabteen sanadkii dhammaaday. mid ka mid ah ayaa yidhi, anigu waxaan sabab u ahaa hebel iyo heblaayo inay kala tagaan. mid kale ayaa yidhi, anigu waxaan sabab u ahaa dhimashada hebel. mid kale ayaa isna yidhi, anigu waxaan sabab u ahaa ninkii hebel ahaa inuu waayo ganacsigiisii. waxaa ka mid ah raggaasi ku dul sheekaysanayay ceelka dushiisa nin oday waayeel ahaa, aamusnaa intay sheekaysanayeen. ragga kale markii ay dhammaysteen sheekadoodii ayay weydiiyeen ninkii odayga ahaa, bal adigu maxaad soo qabatay sanadkii tegay? ninkii waayeelka ayaa waxa uu yidhi, anigu aad ayaan u faraxsanahay oo waxaan sixray gabadha u dhalay xaakimka magaalada oo aad u qurux badan. keligeed ayuuna carruur ka dhalay. dhaqaatiirta oo dhan dawo way u waayeen oo waxaan dawo uga dhigay ceelkan biyihiisa. ninkii ceelka looga tegay sheekadoodii ayuu weli dhegaysanayaa. nimankii sixiroolayaasha ahaa ayaa markii ay sheekadoodii dhammaysteen ceelka isaga dul tegay. ninkii ceelka looga tegay weli ma uusan helin cid caawisa oo weli waxa uu ku dhex jira ceelka oo waxa uu baadigoobayaa cid ka badbaadisay ceelkani. waxaa dul imaaday ceelka rag safar ahi si ay biyo uga dhaansadaan. waxayna maqleen ninka dhex hadlaya ceelka dhexdiisa. jin ayay moodeen, laakiin isaga ayaa ku yidhi, jin maahiye, iga badbaadiya ceelka. waa ay ka soo badbaadiyeen ceelkii. qisadii ayuu u sheegay in nin saaxiibkiisa ceelka uga tegay. kadib ninkii ceelka laga tegay waxa uu soo aaday magaalo uu joogay xaakimka gabadhiisa la sixray. markuu yimiday guriga u degnaa xaakimka, waardiyaashii xaakimka ayuu waxa ku yidhi, waxaan doonayaa xaakimka, dawo ayaan u hayaa gabadhiisa. waa ay ku jeesjeeseen waardiyaashii. waxa ayna ku dhaheen, dhaqaatiirta joogta magaalada ayaa dawo u weysay gabadha u dhalay xaakimka ee adigu maxaad daweyn kartaa? ugu dambayntii xaakimkii ayaa loo geeyey ninkii. waxa uuna ku yidhi, xaakimkii ayaa ninkii ku yidhi, gabadha qolkaasi ayay ku jirtaa, cidna uma gasho oo qof walba waa ay dilaysaa. haddii ay wax ku soo gaarsiiso annagu mas-uul kama nihin nafsadaada. ninkii waxa uu u galay qolkii ay ku jirtay gabadha. waa ay ku soo booday iyadoo doonaysa inay disho. biyihii ceelka uu ka soo qaaday ayuu wejiga uga firfirdhiyey. muddo kadib waa ay soo kacday iyadoo caafimaad qabta. xaakimkii ayaa loo sheegay inay gabadhiisa caafimaaday. waa uu soo orday isaga oo doonaya inuu arko gabadhiisa, sababtoo ah keligeed ayuu carruur ka dhalay. markii uu arkay inay gabadhiisa caafimaaday ayuu dadkii oo magaalada dhan u sheegay inuu gabadhii siiyey ninkani sababta u noqday inay caafimaado. waqti kadib xaakimkii magaalada ayaa geeriyooday. ninkii gabadhiisa guursaday ayaa noqday xaakimka magaalada. maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkii xaakimka noqday. isagoo magaalo dhex maraya waxa uu arkay ninkii ceelka uga tegay. askartiisii ayuu ku yidhi, ninkaas soo kaxeeya ee qasdiga igu keena. waxaa la soo istaajiyey isagoo jaraynaya, indhihiisuna hoos ay eegayaan xaakimkii magaalada. markaas ayuu ku yidhi, ma i garanaysaa? ninkii ayaa yidhi, sidee aan kuu garan waayey? waayo qof daciif ah oo sidoo kale ah ayaa tahay, haddana xaakimka magaalada ayaa tahay, laakiin qasrigan oo kale weli ma aanan soo gelin. waxa uu xaakimkii ninkii ku yidhi, waad i garanaysaa, indhaha kor u qaad, si fiicana ii fiiri. markii uu arkay inuu yahay ninkii uu ceelka uga tegay, lugihiisa ayuu qabsaday. waxaana uu ku yidhi, isakay cafi,
waan ka shalaayay arrintii aan kugu sameeyey. Waxa uu ku yidhi kor u kac waan ku cafiyey, haddii aadan caalka iga tegi lahayn maantay booskan aan joogo ma imaadeen. Ninkii khiyaanolaha ahaa ayaa ku yidhi sidee ku dhacday arrinta. Waxa uga sheekeeyey markii uga tagay caalka in niman sixroolayaal ah ay soo mareen caalka. Sixroolayaashana sanadkiiba hal mar ayay u kulmaan caalkaasi dushiisa. Markii la soo gaaray waqtigii ay kulmi lahaayeen, ninkii khiyaanolaha caalka ayuu galay si uu u dhageysto sheekadooda. Nimankii caalka ayay kor imaadeen, sheekadoodii ayay bilowdeen, waxa ayna soo tiriyeen dadkii ay soo sixreen sanadkii tagay. Ninkii waayeelka ahaa ayay weydiiyeen adigu maxaad soo qabatay. Waxa uu yidhi aad ayaan u xanaaqsanahay, gabadhii aan sixray ee xaakimka uu dhalay way caafimaaday. Waxaan u malaynayaa laba arrin midood, inaad adinku sirteedii kashifteen iyo in caalkani gudihiisa lagu jiro. Waxa ay ku yidhaahdeen maya, sidee aynu sirtaada u kashifaynaa? Odaygii ayaa yidhi haddii aadan idinku sirteeda kashifina waxaan u malinayaa in caalkani lagu jiro. Sixroolayaashii waa ay wada istaageen, waxa ayna go'aan ku gaareen inay caalkani dhagxaan ku guraan si ay gebi ahaantiisba u duugaan. Dhagxaan ayay ku bilaabeen caalkii, waxaana markaasi halkaasi qeeliyey ninkii khiyaanolaha ahaa. Sidaasina ayuu halkaasi ugu dhintay ninkii shalay caalka kaga tegay saaxiibkiisa ee khiyaanay. Dulucda sheekadu waxa ay tahay ha khiyaanin qofnaba, ku qabsan doonteeba moogide. Qormadani ayaan idinku talagalnay maantay inaan idiin soo gudbino, ee fadlan subscribe dheh Brentol Banaadir Online. waadna ku mahadsantiin daawashadiinaan saaxiibayaal. mahadsanidin. Ramadaan mubaarak.